musharaxa golaha wakiilada gobolka Maroodijeex mudane Yaxye Araarse Aamin ayaa gurmad biyo dhaamin ah gaarsiiyay 15 deegaan oo kamid ah deegaanada waqooyiga iyo galbeedka gobolka Gabiley iyo sidoo kale deegaana xadka uga talowsan dhinaca Itoobiya sida deegaanada Madarka deegaanadaasi oo maalmihii u dambeeyay ay ka soo yeedhisay xaalad biyo la'aaneed waqti lagu jiro xilli kaliileedka jiilaalka isla markaasina ay bacad iyo oon badani ka jiraan deegaanadaasi oday Muuse Miigane iyo Mukhtaar Xuseen Yey oo ka hadlay gurmadkani biyo dhaaminta ayaa sheegay in booyadahani biyaha oo dhan 43 booyadood uu ku deeqay musharaxa golaha wakiilada gobolka Maroodijeex Yaxye Araarse Aamin bulshada deegaanadani waxaan booyadaha u kala diranaa tuulooyinka ay deegaan reerku oo ka mid tahay Laaca Juufa Satiile Ilmadado guriga cad oo ilinta banka maxay idanka ilka weyne intaas aanu kala diranaa waxayna dhaaminaysaa ku soo beegantay xilligii diiwaangelinta codbixiyaasha kaadhashada la siinayay waqtigan waa waqti adag ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dadka inay abaarta ka soo jabiyo kulli ila caawa ila bari way shaqaynayaan booyadahaasi kulli booyada kale iyaguna waxay jiraan ka maamulano qaybta Wajaale oo iyaguna u bixi doona ilaa Madar ilaa Itoobiya qaybta qarka shisheeye reerku dego kuwaas kulli waxaan ka maamuli doonaa qaybta Wajaale aad iyo aadna waxaad u mahadsantihiin xildhibaankana waxaan u mahadcelinaynaa sida uu dadkiisa u soo xusuustay sida uu biyaha iyo waqtigeegii iskugu beegantay xilli kaliila xilli kaarkii la qaadanayo waxa soo dhanba xilliga isna ku soo beegan aad baan xildhibaankan ugu mahadcelinaynaa Yaxye Araarse Aamin aad ayaan uga mahadcelinaynaa xasuusta uu deegaanadiisa ku soo xasuustay xilli kaliileedka intii karaankiisa ahayd inuu biyaha gaarsiiyo maadaama goobahaasi ay isugu imanayaan dadkii kaadh qaybinta u imanayay deegaanka ku baahsana iyo intii deganeydba si ay biyaha uga faa'iideystaan ayaa ugu deeqay intii karaankiisa ahayd gacanta alla lagu dhargaa rabbi bariga maxaan idhaahdayay mi iyo magaalaba waxa laga wadaa roob doonta gugi hore muu baaqan jiilaal aad u adag inama soo marin laakiin kaliil kulul baa jirta oo biyo kaliisha kulul ilaahay raxmada ay noo soo qaboojiyo fadku waa kaayna dul taagan waxaan leeyahay xusuusta inba waxidin taraba xusuusta ku gunta dhinaca kale bulshada deegaanadani ayaa musharaxa golaha wakiilada Yaxye Araarse Aamin uga mahadceliyay gurmadkani biyo dhaaminska ee uu u sameeyay xilligani oo oon badani ka jiray deegaanadaasi iyagoo sheegay in waqtigani ay baahi weyn u qabeen waxaana ay intaasi ku dareen in iyaguna musharaxa ugu helin doonaan codka xilliga doorashada sida hadalka u dhigeen ma hadda ilaahay baa leh waxaan u ambalyeynaa runtii musharaxa Yaxye Araarse Aamin Ismaaciil yaanu hadalyeynaya biyahaas isaga noo keenay waana ka suganaa biyo kalena taageero kalena waan ka suganaa ilaahay baa mahad leh annaguna codka yagaanu siinanaa waan gacan qabananaa ilaahay baanu la kaashananaa inaanu soo saarno halkani waxaan salaamayaa musharaxa Yaxye Araarse Aamin Ismaaciil ayaan salaamayaa uguna mahadnaqayaa annaga oo ooman oo kaliil ku jira iyo doorashooyinkii oo ulaanahay biyaha noo keenay ayaan ugu mahadnaqayaa kii soo baxa dadkiisa iyo dhulkiisa wax u tara ayaan u rajaynayaa waxa weeye biyo Yaxye Araarse wuxuu noo keenay biyo fara badan markaa waxa weeyaan waan ka gudoonay anagoo beesha ilka weynaa marka dhamaantoodba waanu ducaynaynaa waqti kaliil oo aad iyo aad xoolaha iyo dadkuba waan ku aad ugu badan yahay oo inoo keeneen insha Allah kariim waana helayaan doorashada waana ku mahadsan buu mahadsan yahay Yaxye Araarse waqtiga ah noo keenay waa kaliil waanu ka gudoonay biyuhu noo keenay waanu helay waanu ducaynaynaa inuu ka helay noqdo ku anfaco ku guuleysto ayaanu u ducaynaynaa waa beeshaas idanka ah Sikiriye Nuux Ibrahim codka bariga Afrika gobolka Gabiley